السلام عليكم كل سوداء channel كيغا مودن سومالي فود maanta waxaan idin la wadaagayaa cunto aad u qurux badan waa suqaar aan ku sameeyay baamiye waa cunto fudud aadna u qurux badan waqti badanna aan ka qaadanayn fadlan haday tahay markii ugu horeysa channel kayga soo booqato subscribe ii saar hadii kalena asxaabtaada la sii share garay videogana like iyo comment iga soo bixi cuntadana maanta waxay ka kooban tahay hilib aan soo karkariyay oo hilib waa beef sidoo kale okra sidoo kale mix pepper ama barbarooni dhowr midab ah xabad basal oo weyn in yar oo kamasara iyo qaji qiyaasta qof kasta intii ku filan ayuun buu samaysan doonaa insha Allah waxaan nimka bilaabayaa inaan isku sameeyo cuntadeena hilibka waxaan u soo karkariyay maadaama oo rabo inaan uga faa'iideeyo channelkayga dadka iskaabulada aad ugu xidhan ama ragga iyo dumarka aan rabin inay waqti badan cuntadu ka qaadato inay kariyaan marka hilibka marka hore ayaan gaar u soo karkariyay una jilicsan yahay imika waxaan doonayaa oo kaliya inaan isku wada shiilo waqti badan igama qaadanayo ugu badnaan 20 minutes 15 minutes ayuu iga qaadanayaa hilibkeeni oo imika soo shiilaya waxaan ku daray basashaydii waan yara daboolayaa inta isku shiilmayaan hadii Ilaahay dhaahdo si fiican isku dhaxgalayaan waxaan ku daray barbaroonigayga badan anigu dabkaan isticmaalaya wax weyn dabka aad baan uga gaabiyaa ama medium heat ayaan isticmaalaa cuntadu si fudud oo fiican ay kuugu bislaanaysaa hadad laakiin dabku uu kaaga bato cuntadii oo qaydina ayaa ka gubanaysa imika kamasaradeedii iyo qajigii ama basbaaskii ayaan ku darsaday hadana doonaynin qajiga wad ka reebi kartaa ugu dambeynna waxaan ku darayaa okra ama baamiyaha waxaan ugu dambaysiinayaa si uu xoog u jilcin because isagu waqti badan ma qaato inuu bislaado ما شاء الله baamiyahan isticmaalaya noocan waa noocan barafka galiyay oo isagoo diyaar ah ayaa la soo iibsadaa nooca fresh ka hadad haysato jarjaranaysana ka si fiican cuntadeena sidan ay soo baxday ma sha Allah roodi diyaarka ah ayaan dhinaca ka saaray si loogu cuno tabaaraka raxmaan aad ay u qurux badan tahay wana caafimaadkana u fiican tahay saliid badan iyo wax badan oo oilana kuma darin ma sha Allah wana wada green ma jiro hoos ruux u geeya ama hore ku kaxeeya naftaada adaa hogaansha adaa haya keenadeeda halkaad u jihaysa weeye kun haybood noloshu weeye kun hawlood baa ku xeeran kun bay hakisaa